السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال kusoo dhawaada channelka Somali hashtag. Maanta waxaan ka hadli doonaa taariikh nololeed kooban iyo qaabkii uu ku islaamay Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radiyallahu anhu oo loo yaqaan Umar al-Faruq waa amiirkii labaad ee mu'miniinta waana khaliifkii ugu horeeyay ee loogu waco magacan Amiirul Mu'miniin. wuxuu ka tirsan yahay afarta khulafaa ur-raashidiin wuxuuna ka mid ahaa 10kii saxaabi ee loogu bishaareeyay jannada iyagoo jooga ifka. wuxuu ahaa ruuxii ugu horeeyay ee sameeyay kalendarka taariikhda islaamka ee loo yaqaan hijriga. xilligaasi maamulka dawladda islaamka wuxuu gaaray wadamada kale ah Liibiya, Falastiin, Masar iyo Shaam oo maanta loo yaqaan Suuriya. waxa kale oo islaamka qabsaday Qudus. intaasi waxaa dheer waxaa la jebiyay labadii quwadeed ee ugu waaweynaa dunida markaasi ee kala ahaa boqortooyadii Room iyo tii Faris. Umar bin Khattab radiyallahu anhu wuxuu dhashay sanadkii 579 ee miilaadiyada wuxuuna ku dhashay magaalada Makka isla markaana wuxuu dhintay 26 Dhulxijja sanadkii 23. Umar bin Khattab wuxuu ka mid ahaa raggii markii hore islaamka iyo muslimiinta aad ku dhibi jiray. sanadkii 6aad ee soo diridda rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayuu maalin soo kacay isagoo raba inuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam dilo. goor uu dhaxda soo marayo ayaa nin ka hor yimid oo ku yiri Umar oo halkee u socotaa. wuxuu yiri waxaan rabaa inaan Maxamed soo dilo maxaa yeelay dadkii buu kala geeyay. markaasuu yiri ma waxaad u malaynaysaa haddii aad disho inaad reer bani Cabdi Manaaf ka nabadgelaysid haddiise aad wax qabanaysid walaasha Faaduma iyo ninkeedii Saciid way islaameen maad iyaga wax ka qabatid. Umar ayaa markiiba aaday gurigii walaashiis isagoo xanaaqsan. markuu gurigii iridiisa soo maray ayuu maqlay quraan la akhrinayo. waxaana guriga joogay walaashiis, ninkeedii iyo Khabaab oo quraanka u akhrinayay. albaabka ayuu tagay oo garaacay. dadkii guriga ku jiray markay ogaadeen inuu Umar yahay qofka albaabka garaacaya ayay kala dhuunteen. Umar markii gurigii laga furay ayuu gabadhii ku yiri keen waxaad akhrinayseen. markay u diideenna Saciid ayuu la dagaalamay. markaasay gabadhii difaacday ninkeedii ilaa uu iyada lafteedii dakhro gaarsiiyay. markii la dagaalamay oo nabaro la isgaarsiiyay la iskuna xanaaqay ayay dhaheen waxaad doonto samee annagu ilaah ayaynu rumaynay waanu islaamnay. Umar markuu arkay meeshii xaaladdu marayso iyo dhibku reerka u geystay siiba walaashiis ayaa naxariis qabatay. markaasuu tartiib ula hadlay oo yiri itus waxaad akhrinayseen. waxay dhaheen waxaad tahay nijaas ay soo qubayso haddaad rabtid inaan ku tusno. wuu soo meertay markaasay u dhiibeen warqadii ay akhrinayeen oo ku tiilay suuratu Daaha. Umar markii uu suuraddii akhriyay ayuu yiri hadalkani waa hadal cajiib ah isagoo ula jeeday quraanka. Khabaab oo dhuumanaya ayaa markii uu maqlay hadalka Umar iyo sidii uu soo dabcay ayuu soo baxay oo ku yiri Umarow waxaan rajaynayaa inay kugu dhacday ducadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam kolkuu lahaa ilaahow laba Umar midkaad khayr ku ogtahay islaamka ku xooji waa Umar bin Khattab iyo Abi Jahl. Umar intuu durba aad isu bedelay oo ilaahay qalbigiisa hanuun ku soo riday ayuu yiri xagee joogaa nabigii. markaas ayaa loo tilmaamay meeshii uu joogay. Umar isagoo wali hubkiisii iska dhigin ayuu meeshii tagay oo ku garaacay gurigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa ay joogeen. asxaabta markay arkeen Umar ayay dhaheen waa Umar. markaas baa Xamse oo muddo yar ka hor soo islaamay meeshana joogay yiri soo daayo hadduu wanaag u socdo waanu arkaynaa hadduu xumaan u socdana seeftiisa ayaan ku dilaynaa. Umar gurigii ayuu galay kadibna halka ayuu ku islaamay. Umar iyo Xamse markay islaameen ilaahay wuxuu muslimiinta siiyay cizi iyo xoog. xaaladii Makana way isbedeshay. Umar isla markiiba wuxuu qaaday tilaabooyin dhowr ah. wuxuuna yiri waxaan isweydiiyay ninka dadka ugu nacab islaamka. markaasaan soo xasuustay inuu Abi Jahl yahay. markaasaan gurigii ugu tagay oo ku garaacay. albaabka ayuu iga furay wuuna isoo dhaweeyay. maxaad iigu timid Umar ayuu yiri Abu Jahl. waxaan ku iri waxaan kuugu imid inaan ku ogeysiiyo inaan islaamay oo rumeeyay Allah iyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaan haysan jirnayna aan beeniyay. Abi Jahl intuu naxay ayuu yiri waxaad la timid baa xumaaday gurigiina uu ka cararay. sidoo kale Umar wuxuu yiri waxaan isweydiiyay ninka ugu warqaadka badan reer Makka oo dadka oo dhan hadalka gaarsiin kara. waxaan xasuustay inuu yahay Sumayn ibn Umar al-Juhani. markaas ayaan u tagay oo ku iri
waan islaamay. Markaasuu qayliyey isagoo leh, Cumar bin Khadaab waa iishay. Cumarna waa ka daba hadlay isagoo leh, ma iilana waan islaamay. waxaa kale oo Cumar sameeyey markuu islaamay ayuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku yiri, rasuulkii Allow, soo xaq kuma taagnin, waa inaan baxnaa dhammaanteen oon Kacbada ku soo tukannaa. rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa ka yeelay. Markaasaa waxaa soo baxay asxaabtii oo 2 saf ah, safna Cumar ku jiro, safna Xamse. Qurayshna tala ayaa ku cadaatay, waxayna ka caroodeen waxyaalaha uu Cumar sameeyey. Allah subxaanahu wa ta'ala muslimiinta wuxuu gaarsiiyey cizi, waxayna bilaabeen inay waxyaalo badan oo ila dhooman jireen bannaanka ay soo dhigaan kadib islaamidii Cumar iyo Xamse.